السلام عليكم daawadayaal meel kastoo aad joogtiinba waan idin salaamay duuliyo Orlando Cordazo Fanficanzio waa duuliye diyaaradeed oo dhinaca dagaalka ah waa duuliyihii ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ku qabteen dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya waqti ay ciidamada Kuubaanku ka mid ahaayeen dalalkii u soo gurmaday waddanka Itoobiya duuliyo Orlando waxa uu ahaa maxbuus muddo ku dhow 12 sano ku qaatay xabsiyadii dalka Soomaaliya gaar ahaan inta ugu badan waqtigiisa waxa uu ku qaatay xabsigii laanta buure waxa ay ciidamadii Soomaaliya ka soo qabteen aagga magaalada Harar taliyihiisii iyo rag kaleba waxa ay ku dhinteen weerar gaadma aha isagana lagu soo qabtay waxa lagu soo xiray xabsigii laanta buure ee gobolka Shabeellaha Hoose waxa uu halka ku xirnaa 10 sano 7 bilood iyo hal maalin kaligiis ayuu gooni u xirnaa waxa uu kamid ahaa maxaabiistii la sii daayay sanadkii 1988 waxa la geeyay magaalada Dirdhaba halkaas oo uu kula kulmay ehelkiisa iyo madaxdii Itoobiya kadib waxa loo qaaday dhinacaas iyo caasimadda Hafana ee waddanka Kuuba wasiirro ayaa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Hafana waxa la marsiiyay baaritaano caafimaad iyo daaweyn u badan xagga dhimirka markii la qabtay da'diisu waxa ay ahayd 20 sano darajadiisa ciidan ee waqtigan waa gaashaan la sare waxa intaas u dheer in la siiyay bilad geesi oo qaran waa biladda geesinimada ee jamhuuriyadda Kuuba buug uu qoray ayuu kaga warramay sanadihii badnaa ee uu ku jiray xabsiyada Soomaaliya buugga oo uu ciwaankiisu yahay Reto ila Soledad waxa uu ku qoran yahay afka Isbaanishka iyo afaf kale afka Isbaanishka waa afka lagaga hadlo dalka Kuuba ciwaanka buuggiisan xusuus qorka ah ee Reto ila Soledad macnihiisu waa adkaysiga kalinimada ama iska caabinta kalinimada waxa aan rabaa in aan idila wadaago buuggaas oo la turjumay buugga duuliyahan waxa daabacadiisii ugu horeysay la soo saaray sanadkii 2003 mar kale 2009 ayaa la daawacay daabacadiisii labaad halka mar saddexaad daabacadiisa la soo saaray sanadkii 2014 qaybtiisa sare ee buuggan xusuus qorka ah waxa uu qoraagu u qaatay sawir muujinaya baal shimbireed oo ku dhex jira xabsi biro adag ka samaysan waxa uu ku qaadaa dhigayaa buuggiisa sidii uu Itoobiya ku tagay ujeedadii uu u tagay dagaaladii uu ka qayb galay iyo ugu dambeyn xabsigii dheeraa ee Soomaaliya ee uu ku dhawaad 12 sano ku soo qaatay ku soo dhawaada barnaamijkeena tan kale channelku waa uu cusub yahay subscribe-ta inagu caawiya buugga iska caabinta caqabadda kalinimada waa sheeko nololeed oo khalifsan ma ahan qiso jacayl balse waa qiso xanuun badan oo loogu talagalay in wax lagaga barto iska caabinta dhibaatooyinka qoraaga buuggan Orlando Cordazo waxa uu xusuus qorkan ku muujinayaa si uu idin la wadaago dareenkiisa ku aadan waqti ay naxariis darro weyn la kulmeen isaga iyo maxaabiis kale oo ku jiray muddo dheer xabsi uu ammaankiisa aad u sareeyo oo ku yaala Soomaaliya fahmidda bogogga buuggan xusuus qorka ah waa in si miir qabta loo dhigtaa si loo fahmo xaaladda maskaxeed ee uu xusuus qorkan ku cabirayo nin dhalinyaro ah oo gudanayay waajibaad kaas oo ku dhacay shabaqii ciidamada Soomaaliya ee ka qayb galayay dagaalkii 1977 oo ay la galeen waddankaasi Itoobiya duuliye Orlando Cordazo waxa uu aaminsan yahay ilaa maanta oo uu yahay nin weyn oo duq ah in dalka Itoobiya ee uu u tagay in uu ka barbar dagaalamo in uu ahaa waddan iska difaacaya gardarro cajiib waa sida uu aaminsan yahay markii uu Kuuba ka soo tagay waxa uu aaminsanaa in uu soo guuleysto isaga oo ku qanacsanaa in si uu guul u gaaro uu dhaawacmi karo xataa la dili karo isaga oo gudanaya waajibkii kacaankii dawladdiisa waxa kale oo uu aaminsanaa in uusan weligii ku jiri karin gacantan haddiiba dagaalka lagu qabto isaga oo sheegay in uu ogaa in xeerarka caalamiga ah ee dalalka adduunka ay kala saxiixdeen taas oo uu filayay in ay fursad siin karto una dhacday sidii uu rabay ugu dambeyn sanadkii 1988 markii uu ku soo baxay heshiiskii ay Soomaaliya iyo Itoobiya ku kala saxiixdeen in ay maxaabiista isugu celiyaan oo ay guddiga lanqeyrta casfududeysay ma jirin hal calaamad oo 22 January sanadkii 1978 ii muujinaysay ayuu yiri in aan wax dhibaato ah la kulmaayo waxa aan dhex dabaalanaynay guulihii aan waqtigaasi ka gaarnay saaxadda dagaalka markii aan u hiilinaynay saaxiibada Itoobiya waxa aan ku faani karaa in aan ku raaxaystay qalbigeygana ku xasilayay daqiiqadihii ugu fiicnaa noloshayda maadaama aan si deeqsinimo leh dhiilka uga buuxsaday ammaanta noogala soo diraya dalka Kuuba iyo xataa Itoobiya gudaheeda iyada oo la xaqiijinaya mid ka mid ah mabaadi'da ugu sareysa ee kacaanka waa caalamiyeenta proletarian oo ah mabdii ay ku dagaalamayeen Kuubaanku iyada oo aan 20 sano oo kaliya jiray waxaan horeyba u ahaa sargaal akadeemiyadeed waqtiyadaasi ayaan ka soo baxay akadeemiyadda ciidamada cirka ee dalkaasi Kuuba waxa aan haystay darajo sareysa oo dhinaca ciidamada cirka ah waxa aan ka qayb galay howlgalkaygii labaad ee caalamiga ahaa waxa aan ku faraxsanaa in aan mar kale u baxaya howlgal ballaaran oo aan ka soo sameynayo waddan dibadeed iyada oo aan markii labaad dal Afrikaan ah oo aan isku mabda'nahay la soo shaqeynayo ama aan hiil u ahay waxa sharaf ii ahayd oo aan ku faanayay
in layga soo dhex doortay boqolaal duuliye oo aan isku aqoon iyo isku xirfad ahayn markii la ii diyaarinayo howlgalka ciidamada jasiiradda Kuuba ay ku tagayeen Itoobiya ee ay kaga qayb galayeen dagaalka Itoobiya iyo Soomaaliya u dhaxeeyay waxa aan ka mid noqday guutada ciidamada cirka EVCM madaxa kooxdaydu iyo sargaalkan hogaaminayo waxa uu ahaa sargaalka aan waqtigaas u tixgelinayay kan ugu aqoonta badan waana gaashaanla sare Alvaro Lopez Miera maanta waa jenaraal ka tirsan ciidamada cirka dawladda kacaanka Kuuba waxa uu leeyahay sumcad weyn oo dhinaca ciidanka ah maalmahaasi oo aan ka soo ambabaxaynay dalkeena Kuuba waxa aan dareemayay farxad ma aanan sawirinaynin waxa aan kula kulmi doono Itoobiya iyo furimaha dagaal ee u dhaxeeya saaxiibadeedii Itoobiyaanka iyo kuwa Soomaaliya fikrad kama aanan haysan sida ay u dagaalamaan Soomaalidu iyo xataa Itoobiyaanka waxa aan soo gaarnay dalka Itoobiya maalin Isniin ah waxa aan xasuustaa sidiina loogu soo dhaweeyay dhammaan saldhigyadii aanu tagnay ee ciidamada cirka Itoobiya iyo xataa ciidamada dhulka ee Itoobiya waxa aan arkay dhul balaaran oo cagaaran oo Itoobiya ku yaala oo leh waliba harooyin waaweyn oo biyo ka buuxaan ma aanan filaynin in ay sidaas u qurux badan tahay Itoobiya waqti badan ayaan ku bixinay diyaarinta dagaalyahanada Itoobiya muddo 2 bilood ah ayaan la shaqaynaynay ciidamada kala duwan ee Itoobiya annaga oo la yaabnay oo ku qanacnay awoodooda iyo adkaysigooda duruufaha qalifsan ee looga baahan yahay askari dagaalgelaya waxa ay ahaayeen kuwa caqli badan inkastoo aysan lahayn tababaro xirfadeed oo sareeya taas bedelkeeda waxa ay ciidanka Itoobiya ahaayeen kuwa aad u liita dhinaca tababarada dagaalka inkastoo ay xaaladdu sidaas ahayd haddana waxa ay muujinayeen rabitaan weyn oo ah in ay wax bartaan si ay u horumaraan oo ay dagaalka uga lib keenaan waxa aan aad ugu riyaaqay markii aan arkay dhalinyaro Itoobiyaan ah oo aan waxna qorin waxna akhrinin oo kaliya yaqaana sida xabadda loo rido waxa aan noqonnay macallimiin wanaagsan iyaguna waxay ahaayeen arday wanaagsan jir iyo nafba u horay maareynta takhasus adag oo ciidanimo 2 bilood ee aan la joogay askartan Itoobiyaanka ah aad ayaan isku dhex galnay oo waxa meesha ka baxay isfaham la'aantii maalmihii hore muddo yar oo aan durba ku sugnaa Itoobiya waxaan la kulmay waaye aragnimo ballaaran waxaana arkay in ay dadka xabashidu yihiin dad wanaagsan maalin maalmaha ka mid ah markii aan muddo dhowr bilood ah tababarku u wadnay ciidamada Itoobiya waxaa la gaaray diyaargarowgii dagaalka aan sida tooska ah ula safanaynay ciidamada Itoobiya ee aan isku mabda nahay inkastoo uu dagaalka waqtigaasi socday haddana anagu waxa aan joognay xagga shishe iyo xiriyaha tababarada iyo saldhigyada ciidamada saraakiisha Itoobiyaanka iyo kuwa Kuuba waxa aan ka sugaynay in ay soo sahmiyaan dhulka ay u dooranayaan goobo dagaal oo cusub iyo dejinta qorshaha dagaalka ciidanka cirka askarta Itoobiyaanka ah inkastoo ay xirfad ahaan liiteen sidii aan idin soo sheegay haddana waxa ay ahaayeen caadiyan rag iyo haween dhalinyaro ah oo lagu soo talaalay damaca ah in ay guuleystaan aniga iyo dhowr askari oo Itoobiyaan ah ayaa saacadan ku sugneen meel cirif ah oo ka mid ah harada weyn ee Langano waxa aan ahaa mid dagaalka dareen weyn ka qaba inkastoo aan wax cabsi ah ka qabin dagaalka haddana saacadaas waxa aan ku raaxaysanayay dhaqdhaqaaqa laamaha dhirta ee ku taala hareeraha webiga iyo weliba codka shimbiraha waxaa socday maalmahaasi guluf ciidan oo aad u badan wararka aan ka helaynay dagaalku waxa